hadallada qosol kale ee Robert Mugabe laga hayo waxaa ka mid ah musaaricadu waa wax lagu qoslo waa meel ay joogaan niman u dagaalamaya suun iyaga oo aan sidanin surwaalba waa nacbahay wiilasha aan baabuurka wadan waxa sidaas tiri gabadh aan xataa baaskeel wadan Afrika waa meesha qura ee gabadh ka soo amaaneysatay saaxiibadeed ay la kulmayso wiil qolka amaaneystay saaxiibkii waxaan ogaaday in Afrika ay ka wanaagsan tahay Yurub markan ka waayay gidaar aan kaadi isla taagaba haddaad aragto lamaane Afrikaana oo xaafadda horteeda ku leersanaya ha u marin jacayl ee korontadii ayaa ka tagtay haddii aad aragto nin xaaskiisa marka uu gaadhiga joojiyo inta uu soo dego daaqada gaadhiga ka furaya kama aha jacayl ama gaadhiga ayaa cusub ama gabadha ayaa cusub haddii la xidho meheradaha lagu gado make-upka caruur badan ayaan hooyooyinkooda qoonsadeen inaad gabdho badan xidhiidh la samaysaa waa qaab aad ku dawaaqinayso oo ku khalkhalinayso cadowgaaga si aanay gaar ugu bartilmaameedsan midhaada yar ee gacalisadaada ah balse dumarku siyaasaddaas iyo istiraatiijiyaddaas ma fahmayaan aroosku waa meel ay isugu yimaadaan dad badan oo laba ka mid ah inay ka fikirayaan galmo inta soo hadhayna cunto dumarku waxay khiyaamaan militariga jiidda jooga ee bambooyinka iyo hubka culus sita sidee ayaad ugu maraysay adiga oo laabtoob sita inaanay ku khiyaami karin musuqmaasuqu waxa uu ka bilaabmaa marka aad ka qaado ilmahaaga lacagta ay siiyaan dadka idin soo booqday adiga oo ka sasabanaya wiilka aad la sheekaysato markaad barayso saaxiibadaha waa sidii adiga oo waraabe tusaya dhowr nooc oo kala duwan oo hilib ah oo mar liiba isagu wada cunaya hilibka walaashay waxaa tahay 35 jir haddana wiilasha kula soo hadla ayaad ku leedahay xagaad ka soo heshay nambarkayga ee iska suga calafkaaga aynu dumarka u sheegno xaqiiqade marka la leeyahay nin kasta oo guul gaadhaba gabadh ayaa ka dambaysa maaha ta uu la sheekaysto ee waa hooyadii haddii aan soo dhigo bartayda inaan joogo Dubai oo aad kadib igu aragto magaalada aniga oo kula jooga iska aamul labadeenaba Dubai ayaynu wada joognaaye wiilasha Afrikaanku jacaylka waxba kama yaqaanaan mid bay xaaskiisu barkin ku soo tuuraysaa si uu isna ugu soo tuuro barkin markaasuu mindi ku eryanaya Afrika waa meesha qura ee wiil san weyni uu gabadh ku odhanayo la'aanta ma neefsan karo walaashayay halkaad xiriir kala samayn lahayd nin kirada guriga ka bixiya ka waran haddaad toos ula sheekaysato ka guriga iskale dadka kubadda daawada waa kuwo qosol leh waxaad maqlaysaa mid la ciyaartay cusub ayaanu soo siisanay intaas oo milyan oo lacag ah isaga oo wuxuu ku casheeyaba haysan haddii aroos walba aad taagan tahay haddana aadan weli helin lamaanahaagii waxba ma dhaantid hoolka arooska lagu dhiganayo eygaygu waa mid bilaa faa'iido ah shalay ay kalaan eryaday aniga iyo isagaba mar la weydiiyey Robert Mugabe sidee ayaynu iskuuladeenna uga dhignaa kuwa nadiif ah waxa uu ku jawaabay inaynu xaafadaheena iska joogno dhibaatooyinka Afrikaanka waxaa ka mid ah haddii la yidhaahdo qofna dibadda uma soo bixi karo oo waa bandow qof waliba waxa uu soo baxaya balse uu soo eego inay cidi soo baxday haddii aad aragto inay dhibaato haysato gabadh caawi waxaa hubaala in marka xigta ee ay dhibaato qabsato ay ku soo xasuusanayso waan iska daayay daawashada aflaamta Afrikaanku metelaan markaan arkay gabadh ninkeeda ugu daraysa raashinka ay u karinayso sun kadibna dhadhaminaysa bal inuu sun leeyahay iyo in kale inaad falxumaata dhibaatooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah haddii mid qurux badan oo kula jooga ay dhuusa ka baxsato dadka oo dhammi adiga ayay dhankaaga soo eegayaan haddii aad guursato gabadh saaxiib nagala ah Facebook dhammaantayo waxaad noo tahay seedi gabadha tidhaahda ubadkayga ayaan ka jeclahay ninkaygu been ayay sheegaysaa ay sababtu tahay ubadkeeda way kaga tegi kartaa gabadha jaarkeeda oo maanta oo dhan way ka maqnaan kartaa balse ninkeeda hal daqiiqo kagama tegi karto gabadha jaarkeeda dumarka quruxda badani waa sida khudaar qaydhin ama ceedhin adigu waxaad sugaysaa inta ay bislaanayso halka mid kale milix ku darsanayo oo qaydhinkeeda ku cunayo waalidka Afrikaanku waa kuwa kaliya ee ku odhanaya qaad weelkaan cuntada ku cunay oo gee kitchenka haddana ku daba soconaya si ay uga soo faraxashaan kijada Afrika waa meesha qura ee sidaad shaqo u raadinayso ay shaqo raadintu noqonayso shaqadaada qof dhiirigeliye ah haddii aad weydiiso walaal sidee ayaan ku guulaystaa waxa uu ka odhanayaa ugu horreyn naftaada hel talo walaal xaggaan ku dhuumanayay markay Afrikaanku lacag yeeshaan waxay caafimaad u aadaan Jarmalka waxay lacagta dhigtaan Switzerland waxay u dalxiis tagaan Canada
waxay ka soo adeegteen Dubai haddii ay dhintaanna waxay doonayaan in lagu aaso dhulkoodii hooyo. Afrika ma qubuuraa markaa? qof ayaa inta uu tahriibo maalmo kadib ku soo wacaya oo ku odhanaya ka waran dalkii iyo degaankii oo kaalay ma aniga markii horeba kaa kaxeeyey dalkaaga. Afrika marka aad joogto uma baahnid alam ama qaylada saacaddu inay ku kiciso, mushkiladahaaga ayaa ku toosinaya oo baraarujin kuugu filane. Afrika habeen kasta haddii gurigaaga tuugu soo dhaco jaarkaagu ogaan maayaan. hal habeen haddii aad hal gabadh la timaadana jaarka oo dhan ayaa laga wada ogaanayaa. walaalkayow ha gursan gabadh carmala oo ubad wadata, lama arag ciyaar gool iyo eber ku bilaabanta. Afrika waa meesha keliya ee inta aad wax barato oo aad qalin jabiso aad bilaa shaqada ahaanayso ilaa aad ka ilaawayso kooraskii aad baratayba. gabadh wiilkaad la sheekaysataa waxa uu haystaa mobil Huawei ah, charger Zamzam ah iyo earphone Nokia ah, markaasaad u malaynaysaa inaanu ku khiyaamayn. waxaan ku nacay filimada Afrikaanka ah, waxay ku soo qorayaan shaashada 5 iyo 30 sano ayaa ka soo wareegtay, haddana eyga ku xidhan banaanku intii ayuu la eg yahay oo halkii ayuu ku xidhan yahay. mar la weydiiyey goormaad macasalaameynaysaa shacabka Zimbabwe iyada oo looga jeedo goormaad xilka ka degaysaa, waxa uu ku jawaabay waxaa aadayaa shacabka Zimbabwe. inaas ayaynu kaga baxaynaa kaftanka iyo qosolka Robert Mugabe, waxaana uu ahaa